waxaa la leeyahay dadku inta badan kuma baraarugsana kala tagga labada qof ee lamaanaha in dhibaato ay ku tahay caruurta ayagoo og ayay ka tagaan oo niyadooda markaa baraarug kuma jirto haddaba inta badan marka ay gabar seegeeda uu ka tago ama ay kala tagaan ama ay isfuraan waxaa dhacda in caruurta tarbiya la'aan niyad jab iyo waxyaabo kale inuu soo wajaho kow maxay tahay markaad kala tagtaan waa in aad haddii ifan uu ninka ilmaha la haro ama uu la joogaan waa inuu sameeyaa haddii maamada ama gabadha dhashay ilmaha ay la joogaan waa inay samaysaa kow maxay tahay caruurta waa inaysan dareemin in guriga kala tag uu ka dhacay jaceylkii shalay ay helayeen waa inay helaan tusaale haddii even meeshii aad ku nooleedeen meel ka duwan aad geyso ilmaha waa inaad ugu sheekaysaa aabbaha daruufo jira awgeed ayuu meel kale u jiraa shaqo ayuu u jiraa wuu idin imaan doonaa sidii hore ayuu idin xanaaneyn doonaa adigoona aan ku lifaaqin waxa idinka dhexeeya seegaaga iyo caruurtaada waana sheekooyinka noocaas aad ugu sheekaysaa si ay qalbigooda ugu dego in nolosha aabahooda iyo hooyada aysan kala leelaan qodobka labaad maxay tahay su'aalaha ay ku weydiinayaan waa inaad si saari uga jawaabtaa tusaale ahaan waxay ku weydiinayaan hooyo sanada soo dalxiiska sooma aadeyno sida galbeedka marka ay sameeyaan hooyo iskuulka markaan fasaxa helo soo halkaas leema geynayo hadiyad leema iibinayo iyo su'aalo kale taasoo aad ugu jawaabayso haa waa lagu iibinayaa waa lagu sameynayaa sida shalay aan kuu jeclaa ayaa maanta kuu jeclahay duruufihii yimaadeen noloshiina saameyn kuma yeelan doonto iyo rajo kale oo aad qalbiga u dhisayso si ay ugu farxaan haddii shalata loo sameyn jiray dalxiis mid ka wanaagsan in loo sameeyo haddii shalata loo keeni jiray hadiyada ka wanaagsan markaa in loo keeno qodobka saddexaad wuxuu ku arki karaa adigoo ilmeynaya adigoo murugsan kaliya meel fadhiya maadaama xiriirkaaga nolosha dheereed aad soo gabagabaysay su'aalaha dib ku weydiiyo ah hooyo murugta maxay tahay hooyo saameynaysan kugu yeelan murugta ani hayso laakiin jaceylkii aan kuu qabay weli waa uu jiraayo wiilkaygiiyo waan ku jeclahay ama gabadheedii waan ku jeclahay mar walibana waxaan ahay hooyadaadii qaaliga ahayd tii hore iyo tii dambaba markaas wuxuu dareemayaa in wax kala fogaanshaa dhibaato aysan keeni karin aana u sheegtid nolosha inay tahay mid markaa isbeddel badan haddii tani ay dhacdana ay tahay duruuf markaa timid oo dhacday uu ka socdo noloshiisa saameyn aysan ku yeelno midka afraad waxaa laga yaabaa markaad teleefon kula hadlaysid aabbahood in aad sida hore oo wanaagsaneed aad uga hadlay maadaama aad kala tagteen waa inaad ka qarisaa haddii even ay dhacdo in aadan agtooda ka kici karin waa in seegaaga aad ku tilmaamtaa haye magaciisaad sheegaysaa ama aabbihiin aad leedahay hadal fiican oo aan ilmaha aysan tarbiyadooda ku halaabin ead kula hadlaysaa si ilmahaasi aysan u dareemin kala tagiina ama dhibaato inay soo kordhisay noloshooda isbeddel marka ay ku timid